Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle Mudane Cabdi Luqmaan oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa uu Baaq Nabadeed Udiray ka gadaal shir jaraa'id ee uu magaalada Muqdisho ku qabtay beelo ku dagaalamaya duleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. waxa uu labada beel kadib tacsiyeyn iyo duco faray qaadashada Baaq Nabadeed kaasi oo lagu soo afjarayo dagaalka taagan ee sababay in la isku adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan kaasi oo u dhaxeeya maleeshiyaad ku kala abtirsada beelaha Makane iyo Jijeele. waxaan halkaan ugu jeedinayaa Baaq Nabadeed beelaha ku dagaalamaya maanta bariyahan isku hayay magaalada Baladweyne. waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu naxariisto dadkii ku waayay naftooda. waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu u boogdhayo dadkii ku waxyeeloobay kuna dhaawacmay. waxaan halkaan Baaq Nabadeed ugu soo jeedinayaa beelaha oo aan leeyahay dagaalka joojiya, waxaadna ku joojisaan shuruud la-aan, waayo dagaal wiil baa ku dhinta mooye wiil kuma dhasho. gobolka ma taxamuli karo mana qaadi karo dagaallo iyo dhibaato iyo qax iyo barakac hadda kadib waxaan mar labaad iyo mar saddexaad xoojinayaa talooyinka ay bixinayaan madaxda Hirshabelle ka joogta halkaa, odayaal dhaqameedka, bulshada rayidka oo u taagan har iyo habeen say u dami lahayeen colaadaas. waxaan ka codsanayaa beelaha ishaayo in aysan mar dambe soo laaban colaadan oo ay boggooda Ilaahay subxaanahu wa tacaala isu soo jiido oo ay heshiiyaan, mar dambena aysan dhicin wax dagaal ah oo dhiig ku daatay insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay dagaalka hala joojiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. in ka badan hal isbuuc ayay labadaasi beelood ku dagaalamayaan magaalada Baladweyne, waxaana baaqyada nabadeed ee loo dirayo ay noqdeen kuwo aan xisaab lahayn, inkasta oo aad moodo in aan loo wajihin sidii ay mudnayd. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.